subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ee dalka Soomaaliya burburka uu soo gaaray ayaa waxaa sii lumay qiimaha shilinka Soomaaliga ee wadanka waxaana bilihii lasoo dhaafay laga diday lacagta shilinka Soomaaliga gobollo kamida kuwa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haddaba lacagta sii duugoobaysa dhaqaalaha aanan iskaabi karin iyo maciishada sicir bararka saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa nolosha dadka danyarta ah maxaase lagu tilmaami karaa heerka dhaqaale ee Soomaaliya xilligan iyadoo federaal la sii gudagalay maamulo ah su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa aan weydiiyay Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa macadka Geeska Afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dhaqaalaha Soomaaliya sidaad ka warqabtaan waxaa lagu tilmaamaa dalalka adduunka ugu tamarta iyo dhaqaalihiisu asbaabtoo fara badan oo xasilooni la'aanta xagga nabadgelyada abaaro soo noqnoqonaya oo hadda sanadkan u dambeeyey dhibaatooyin badan oo baahsan waqooyi koonfur bari galbeed Soomaaliya ku baahay waxaan oran karaa ummaddu waa iska nooshahay waxa qule aan leeyahay waa ku badbaadaa waxa weeye diasporada faraha badan ee dadkooda in muddaaba 20 sano quudaysay ama wax mucaawanaha u geysanaysay qodobka labaad ee xoogaa mucaawanada dadka adduunku ay bixiyaan hadday humanitarian tahay mid dadka dhibaatooyinka soo jiraanka ah ee wax ka saaraysa wax badan oo hadda horumar dhaqaale oo international community-gu ama dalalkan adduunka kobcaya waxtaraa Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen anigu muuqda ma ogi waxa ay keenaana wuxuu ku baxaa uun ayaga iyo shaqaalahooda iyo consultantskooda iyo waxay la yimaadaan marka waa waqtiga adag baa Soomaaliya ku jirta raxmadda ilaahayna lagama qanacay haddii balonta marka hore raxmaad iyo nabad la helo kabacdi wuxuun horumar ummaddu iyadu isku tashanayso ay dalkeeda gashato ugu horeyso maamulka dhaqaalaha oo la toosinayo waxaan isleeyahay lama rajin beeli karo waxyaabo badan oo inta dhaama inay yimaadaan waa suuragal waa gartay dhinaca marka la fiiriyo doctor lacagaha Soomaaliya lacagta Soomaaliya muddooyinkan dambe dadku aad ayay uga diiranayaan gobolada qaarkood buuq fara badan ayaa ka taagnaa sicir barar ayay taasi keentay gobolada qaar waa laga diiday marka dhaqaalaha saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa sicir bararka yaraanshiyaha si dhamaanshiyaha lacagta Soomaaliga sidoo waxaan oran karaa waxyaabaha yandarada waxa weeye dal 60 sano hor ahaa dhibaatooyin badan oo hadda qaskii ka dhacay dalka 1991 intii ka dambeysay waxaa abuurmay lacagtii Soomaalidu inay noqotay mid walwalba intuu qof mashiin dhigto hadday tahay maalqabeeno iyo hadday tahay maamuladan gobolada qaarkood faraha lagu fiiqayo waa wax lala yaabo weeye inay dawlad Soomaaliyeed oo ku dhiirata inay xal u raadiso arrintan in la helo lacag adigu aadan lahayn oo aadan daabacan oo dollar hadday tahay iyo hadday Kenya shilinkeeda tahay iyo hadday bir Ethiopia tahay midna dalkan ma anfacayo waliba dadka ugu dhibaatada ugu badan soo gaaraysa waxa weeye dadkan danyarta ee aan baanakana la macaamilin waxaan la yiraahdo sad iyo telecommunication manigan aanay soo gaarin marka waxaan oran karaa sida dhaqaalahooda loo kordhiyo waa in la helaa lacag qiimaheeda ummaduna ay ogoshahay siyaasiyiintu aynay u isticmaalayn waxaan danahooda gaarka u ah dalka iyo dadkana loogu faa'iideeyo la soo celiyo qarankan lacagtiisa dhibaatooyinka taas ay keenaysaa waxa weeye haddii aan maamul suuban oo wanaagsan oo la isla qaatay waqooyi iyo koonfur iyo Soomaaliya oo dhammi oo aan la ogolaan lacagta tan inay tahay mid iyada tan inoogu wada jirto waxaan oran karaa de waxaa ku filan gobol iyo laba yidhaahda annaga naafici mayso haddaan antana loo yeelin taa loo yeelin marka waa in la helaa commitment ama garashadii inay dadku iyo dalkoo dhan u fiican tahay waktiga ay munaasibka tahayna dawladdu ay ku dhiirataa sidii loo maamuli lahaa sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha hortaagan ee caqabadaha ugu taagan haddii lacagtanu maaha waraaqdii la iska daabacan jiray lacag dadku usoo joogsanaya haddii la samaynayo kharash badan bay u baahan malaayiin dollar bay u baahan tahay 50-60 ayaa lagu qiyaasaa studieska hadda meelaha laga sheegayo
ka yarna in lagu suurogeliyaa waa wax macquula. marka haddaan kusoo noqdo jawaabta oo koobani waxaa weeye lacag waa loo baahan yahay, laakiin dariiqii loo mari lahaa iyo kudhicii iyo kudhiiradkii ummaddu ay u baahnayd labadaba waa la sugaya, waana loo baahan yahay. waa tahay su-aasheeda ugu dambaysa haddaan bal si kooban ku weydiiyo, maamullo federaala ayaa sanadahan dambe Soomaaliya ka hirgelay. marka la eego magaalo madaxyada ayaa la sheegaa maamul goboleedyada ay ka dhisan yihiin in dhaqaalaha iyo ilaha dakhliga wax soo saarka gobolada ay ku eg yihiin, degmooyinka kaleetana aysan ku baahin hanaankii hadday noqoto dhaqaalaha iyo habka federaalka ahba. marka bal waxaad iga warantaa taa laftirkeeda sidee saameyn ugu yeelan kartaa dadka danyarta ah noloshooda iyo dhaqaalahooda? waxaa weeye yandarada aan leeyahay waa laga bogsan karaa. waxaa weeye federaalka Soomaaliya waa inta badan hadal af laga yiri weeye, laakiin wax ficila oo lagu dhaqmo oo ummadda wuxuu soo kordhiyaa ilaa hadda lama suuro gelin. constitutionku inuu qayaxo sida arrimaha la isula qaadanayo federaalka loogu dhaqmay, oo aanay goboladuna siday doonaan uga fekerahayn, dawladda dhexaana siday doonaan uga fekerahayn. federalism haddii lagu dhaqmayo ama maamul wadaagba lagu dhaqmayo, haddaan kelmadda Soomaalida ee habboon isku dayo, waxa weeye in la isla qaataa wax ummadoo dhan anfacaya, dawladda dhexena ay ku dhaqmi karayso, goboladuna la ogol yihiin. oo hadday tahay awoodda dhaqaalaha maamulka, hadday tahay cadaalad, hadday tahay ciidan qaran oo la dhisayo, waxaasoo dhan waa in feker midaysan lagu dhaqaa laguna keenaa. maamulka waa in laga daadejiyaa magaalo madaxyada gobolada la sheegayo, waa in degmooyinkii la gaadhsiiyaa. waxay leeyihiin xuquuq ay tacliin iyo caafimaad iyo biyo iyo noloshoodii oo dhammi aan cidina hadda u hagarbaxayn. Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa macadka Geeska Afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayuu kaasi ahaa, oo isagoo ku sugan gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington khadka telefoonka igu waramay.